بسم الله الرحمن الرحيم waxaan rabaa caawayto inaan halkaan ka soo jeediyo war saxaafadeed ama kelmado kooban oo aan kaga hadlayo xaalado aad u fool xun oo aan ku fiicnayn dadnimada wanaagga Soomaalinimada wada dhalashada iyo waliba isqaymeyn la isqaymeynayo waxa ka dhacday magaalada Gaalkacyo xalayto xaflad lagu maamuusayay kowda Luulyo oo waliba calanka lagu saarayay saqdhaxa markay ahayd sida loo bartay 6 saac oo kale arintaas waxa dhacday in khudbada laga soo jeediyay meesha khudbadahaas markii laga soo jeediyayna laga sheekeeyay dadkii Soomaaliya taariikhda ku lahaa laga sheekeeyay dadkii u soo halgamay dhaxalka wanaagsan Soomaaliya u soo hooyay nasiib darro wanaag darro falxumo aan ka fiirsi lahayn waxa si toos ah khudbadii loogu soo qaatay dad Soomaaliya inay dhibaato u geysteen mooyaan aan khayr u soo hooyinin waxa khudbadii lagu soo qaatay Caydiid ina Qaybdiid Cabdullaahi Yuusuf iyo rag lamid ah ayaa waxa loo soo qaatay inay yihiin halgamayaalkii gobolka Mudug ka soo jeeday nasiib darro waxa soo diyaariyay sida aan warka ku helay khudbada oo akhriyay oo aan daawaday madaxweynaha Puntland wuxuu si caday fadaysan oo muuqata oo aan kaga basho lahayn uu uga tagay halgamaagii Soomaaliyeed ma aha inuu qabiil ku kooban yahay Maxamed Cawaale Liibaan ka soo jeeday gobolka Mudug wuxuu uga tagay anaa inii sheegaya runta haddaan la isu sheegin wanaag ma yimaado sababta Maxamed Cawaale Liibaan xalayto ayadoo gobolka Mudug lagu qabanayo xafladii kowda Luulyo looga tagay maxay tahay ummadoo dhan ba isweydiisay ilaa halgamaa markii la dhaho fartu taagay wuxuu uga tagay wax kale ma aha Maxamed Cawaale Liibaan xalay in laga soo qaadi waayo gobolka Mudug oo ku dhashay halgamaa Soomaaliyeed ahaa maxaa keenay waxa keenay waa codad ka dhalatay xanaaq ka dhashay madaxweynaha dalka Soomaaliya oo khudbad ku soo qaatay isagoo baarlamaanka la hadlaya in maamuus iyo sharaf loo muujiyo dadkii wadanka Soomaaliya u soo halgamay dhiigooda u soo qubay u soo dhibaatooday naf iyo maalba ku soo waayay khudbadaas oo madaxweynuhu ka jeediyay oo waliba uu si toos ah ugu taageeray oo u muujiyay oo u yiri sida Maxamed Cawaale Liibaan haliyeyga calanka sameeyay Soomaaliyeed waxa kaloo jira oo loogu xusi waayay oo loo soo qaadi waayay waxa kamid ah taageero si mug loogu muujiyay oo ra'iisul wasaare Khayr uu u muujiyay garoonka Cawaale Liibaan Maxamed Cawaale Liibaan oo Gaalkacyo ku yaal asagoo dayacan dhalinyartii Soomaaliyeed markay ka waayeen reer Puntland garab istaag ra'iisul wasaaraha Soomaaliya markuu Gaalkacyo yimid ka qiirooday sidoo u egyahay markii intii reer Puntland u diideen ay isku dayeen inay ka istaajiyaan ra'iisul wasaaraha dalka Gaalkacyo inuu soo galo intuu ra'iisul wasaaruhu go'aan cad qaatay inuu garoonka Maxamed Cawaale Liibaan soo dhex istaagay ku qiirooday sheegay Maxamed Cawaale Liibaan wuxuu wadanka ugu fadhiyay munaasabana aysan u ahayn halka in lagu magacaabo Maxamed Cawaale Liibaan lacagtii halkaas ahayd $220,000 oo dollar ka ahayd cara ka kacday iyo xumayn lagu xumaynayo iyo maqalkiisa iyo dadnimadiisa
iyo waxqabadkiisa in la sheego diidma la diidaya xala looga tegay ma aha maxamed cawaale liibaan inuu ahaa calanka kaliya inuu sameeyey SYL buu ka mid ahaa leegadii buu ka mid ahaa xubno kala duwan ama wuxuu ka soo qabtay jagooyin kala duwan arrimaha dibadda u qaabilsanaa leegadii Jabuuti wuu tegey arrimaha xorriyadda asagoo macni u socda NFD buu tegey wuxuu ahaa halgamaa Soomaaliyeed ma aha nin qabiil ku koobnaan ma ahayn maxamed cawaale liibaan xaasha wa kalla laakiin sababta xala looga tegey oo waliba sida runta ah waraaqda uu ka tirtiray gudoomiyaha gobolka hadda ninka loo magacaabay Sanyare uu ka tirtiray madaxweynuhu uu ku dhiiraday inuu akhriyo waraaqdaas uu ka maqayaa maxamed cawaale liibaan waa nasiib darro waa cadiifad aan geed ku gabasho lahayn waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogto in la ogaado sababta xalayto madaxweynaha Puntland oo gaalkacyo ku sugan uu uga tegay maxamed cawaale liibaan wuxuu uga tegay wax kale ma aha waa caradii ka kacday qodbadii madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waa cara ka kacday booqashadii ra'iisul wasaare Khayre gaalkacyo dhan intuu soo dhaafay uu garoonka maxamed cawaale liibaan ku magacaaban u tegay oo dayacan waxaan leeyahay marka ummadda Soomaaliyeed sida waa in loo ogaadaa halyeeyadii qaranka Soomaaliya u soo halgamay waa la qarinayaa waxaan la soo banbixinayaa dad wadanka Soomaaliya dhibaatada u geysteen iyo marka la isku miisaamo khayrka u geysteen dhibaatadooda ay badan tahay waxaan leeyahay waxba u dhimi mahayso maxamed cawaale liibaan halyeey Soomaaliyeed buu ahaa taariikh cad oo wuxuu ka tegay bidhaamaysa Soomaaliya oo dhan baa jecel waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed qarannimadiina iyo madax banaanidiina aad ka madax banaantihiin danayste shisheeye u shaqeeya inaynan aad maartay ka digtoonaataan astaamihiina qaran oo muuqda oo banaanka yaalaana oo ilaahay inay siiyeen aad difaacataan danayste nafsadiisa iyo dantiisa ka dhex arki waayey ma garanaysaa halyeeyaasha Soomaaliyeedna oo ku duugaya sidaas awoodna ku duugahaya maartay taariikhdoodiina waxaan leenahay caradiina iyo xumaatadiina ku dhinta